Magaalada Kyoto ee gobolka Kansai, jasiiradda Honshu dalka Japan, ayaa waxaa ku yaalay degmo la yiraahdo Saga Kiyotaki, kaas oo ku yaalay waddo uu tareenka maro, caana ku ah magaca Kiyotaki wadadeeda. Wadadani wuxuu ahaa dhererkiisa 444. Ereyga 4 Jabaaniiska wuxuu la mid ahaa ereyga dhimashada, sidaas darteed wadadani waxay aad ugu xumeyd dadka qalbiga jilicsan iyo kuwa cabsida badan, maadaama la sheegay in ruuxaan ku nooshahay. Waxaa markaasi la sameeyay xilliyadii dambe ee sagaashameeyadii iyadoo la adeegsanayo addoomo. Sababta loo sameeyayna waxay ahayd in markaasi loo isticmaalo wadadani in isku xirto degmada iyo sidoo kale magaalada u dhow ee Arashiyama. Shaqada aad ayay u cusleed markii la fiiriyo meesha aad khatar u ahayd iyo sidoo kale dhulgariirka oo aad u badnaa ayaa waxay markaasi sababtay dad badan oo ka shaqaynaya inay meesha ku dhintaan. Shaqada intii socotay oo dhan dad badan ayaa meesha ku naf waayay, dad badan oo meesha ku dhintayna meydkooda lagama soo saarin oo bartaas ayay ku qurmeen. Kuwo kale oo aad u badanna waxaa markaasi qubuurahooda laga dhisay meel yar in u jirta markaasi meesha dhismaha ka socday, bartaas ayaana lagu wada aasay. Ugu dambeyn waxaa lagu bedelay wadadii tareenka loola rabay waddo caadi ah oo gaariyaasha maraan, markaasna markasta uu qof marayo waxay la kulmayeen arrimo aad u la yaab badan oo aad u cabsi badan oo meesha ka dhex dhacaya. Waxaa la arkay waxyaabo aad u la yaab badan, xataa dadku waxay arkayeen dadkii meesha ka shaqayn jiray oo dhintay markaasi iyagoo gaariyaashooda ka soo dhex baxayeen, ayagoo markaasi ruuxaan aad u cabsi badana. Marmarka qaarna waxaa la maqlayay codad kuwaas iskugu jira qaylo iyo sidoo kale hadal caadi ah oo ka dhex yeeraya wadada intay dadku marayaan. Qaar kalena waxay sheegaan inay dareemayaan matag aad u badan. Dadka waxay dhahaan waxaa sabab u ah maadaama meeshu ay hawada ku yar tahay, laakiin dadka meeshaasi mara waxay sheegaan inay markaasi tahay ur dhimasho oo markaasi meesha dhan is haysata ilaa intay wadada dhaafayaan oo dhanna urkaasi uusan sankooda ka baxaynin. Kuwo kalena waxay sheegaan intay wadada soo marayaan inay dareemayaan sidii inay hawo celinayso kala gaarigooda, markii ay ka soo baxaan wadadana markaasi ay ku arkayaan gaarigooda sidii inay taabteen oo kale qof faro wasakh leh. Sidoo kalena waxay sheegaan inay markasta arkaan haweeney dhar cad qabta oo aad u cabsi badan oo meesha laga galo taagan. Wajigeedu wuxuu ahaa mid aad u cabsi badan oo bilaadan u ekeen, waxayna markaasi dadku sheegaan inay caan ku tahay markaasi inay sababto shilal aad u badan maadaama ay gaariyaasha isku tuurto. Inta ugu badan wadada Kiyotaki in la maro waa mid aad u ammaan badan, laakiin badanaa waxay dadku sheegaan inay iska ilaalisid inaad wax walbo dhaca aadan muraayada eegin, sababtoo ah markaasi waxaad arkaysaa adiga isla meydkaagii oo muraayada kaa soo eegayo, 4 bari kadibna waad dhimanaysaa dhimasho aad iyo aad u xanuun badan.